kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xusuus u joog media qodobada caawa wararkan idinkugu hayna isla markaana aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona dawladda Soomaaliya oo luuqad adag ku cambaareysay kufsigii afgooyo lagu geystay gabdho yaryar oo 3 sano jir ahaa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukuntay raggii dhuusamareeb ku dilay Allah u naxariistay Shaafici Cabdi Xaaji Diiriye qarax meeno oo waxyeelo ay ka soo gaartay wiil iyo aabihiis oo maanta ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose maamulka Jubbaland oo shaaciyay gacmo saddexaad oo ku lug leh dagaalka lagu hoobtay ee ka soconaya duleedka magaalada Kismaayo madasha xisbiyada oo qodobo xasaasi ah ka soo saartay doorashada 2020-2021 dalbatayna doorasho waqtigeeda ku dhacda Somaliland oo xaqiijisay in cudurka coronavirus uu soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulkaasi iyo mid ka mid ah halgamiyaashii ururka SYL Dr. Cabduqaadir Boolay oo maanta ku geeriyooday dalka Ingiriiska markale ay sarag wanaagsan halkani waa channelka xusuus u joog media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe inoo saarto gambaleelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela macluumaadka iyo warbixinada aan bartaan soo gelino sidoo kale muuqaalkan la sii wadaag saaxiibadaada mar waliba inagala soco xusuus u joog media markale ku soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo intaas ka faahfaahsan dawladda Soomaaliya ayaa luuqad adag waxay ku cambaareysay kufsigii afgooyo lagu geystay gabdho yaryar oo 3 sano jir ahaa hukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay luuqad adag ku cambaareysay fal kufsi ah oo 30 Maarso ka dhacay degmada afgooyo ee gobolka Shabeellaha Hoose kufsigaas oo loo geystay gabdho yaryar oo da'doodu lagu sheegay 3 sano jiro wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo goordhow la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay in falkaasi uusan ahayn kufsi balse uu yahay tacaddi ka dhan ah aadanaha waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in dadka geystay falkaasi ay doonayeen in ay Soomaaliya ka dhigaan meel aysan ka jirin bani'aadanimo waxa aan erayo adag ku cambaareynaa ficilka ka dhacay afgooye ee lagu waxyeeleeyay loogu xadgudbay 2 carruur ah oo sabi ah waxa halka ka dhacay laguma sheegi karo kufsi waa tacaddi iyo weerar loo geystay magaca Soomaaliyeed loo geystay shacabka Soomaaliyeed iyo qof kasta oo shacabka Soomaaliyeed ahna waxa wajigiisa la duldhigay ceeb ayuu yiri wasiir Maareeye dhanka kale wasiirka warfaafinta ayaa dalbaday in baaris xoog leh lagu sameeyo dadkii ka dambeeyay falkaasi guracan isaga oo hoosta ka xariiqay in dadka falkaasi geystay ay yihiin dad la soo diray waxa uu ku baaqay in sidoo kale gacanta lagu soo dhigo dadkii soo diray iyo waliba sidoo kale kuwa falka geystay gabdhahan oo 30 Maarso lagu kufsaday degmada afgooye ayaa haatan waxa xaaladooda caafimaad lagula tacaalaya isbitaalka Madiino ee magaalada caasimadda ee Muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sidana waxa ay xukuntay raggii dhuusamareeb ku dilay Allah u naxariistay Shaafici Cabdi Xaaji Diiriye maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maantay xukun adag waxa ay ku riday Maxamed Cabdi Nuur Geedi oo loo yaqaan madax yarey oo 28 bishii hore ee Maaj magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ku dilay wiil dhalinyaro ahaa oo lagu magacaabi jiray Shaafici Xaaji Cabdi Diiriye maxamed oo kamid ahaa ilaalada senator Dhagey oo ka tirsan golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa dilay Shaafici Cabdi Xaaji Diiriye oo watay gaari yar oo nooca raaxada ah wuxuuna marxuumka sidoo kale ka tirsanaa ciidanka xoogga Soomaaliyeed sida wararka qaar ay markaasi sheegayaan gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shoote oo ku dhawaaqay go'aanka ayaa sheegay in dil toogasho lagu xukumay Maxamed Cabdi Nuur Geedi oo loo yaqaan madax yare oo ah qisaasta marxuumka geeriyooday sidoo kale maxkamadda ayaa 5 sano oo xabsi ciidana ku riday Maxamed Cabdi Weli Xasan Boqol oo ay ka bilaabatay shaqaaqadii lagu dilay marxuumkaasi ragga la xukumay ayaa waxa laamaha amniga ku wareejiyay senator Dhagey oo ilaaladiisa ay kamid ahaayeen isagoona tacsi u diray ehelada marxuum Shaafici ugu dambeyn xukunsanayaasha ayaa haysta fursad muddo 30 cisho ah oo ay ku qaadan karaan racfaan haddii aysan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida dhinaca kalena qarax meeno oo waxyeelo ay ka soo gaartay wiil iyo aabihiis ayaa maanta waxa uu ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax saaka ka dhacay agagaarka deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa qabsaday gaari dameer ay la socdeen aabe iyo wiil uu dhalay oo ku socdaalayay halkaasi wararka ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ku geeriyooday wiilka isla markaana uu dhaawac soo gaaray aabaha sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay oo halkaasi ka agdhow
sidoo kale wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in meydka wiilkaasi iyo dhaawaca aabbaha ay goobta ka soo qaadeen dad shacab ah. ma jiro weli wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo ku aadan dhacdadaasi. inta badan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weeraro miino iyo kuwa jidgal ah ku qaada ciidamada huwanta ah ee ka howlgala gobolkaasi, inkastoo aysan sheegan qaraxaasi. maamulka Jubbaland ayaa waxa uu shaaciyay gacmo saddexaad oo ku lug leh dagaalka lagu hoobtay ee ka soconaya duleedka magaalada Kismaayo. war-saxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa waxaa looga hadlay dagaal beeleedyo ka soo cusboonaaday duleedka magaalada Kismaayo ee caasimadda gobolka Jubbada Hoose. qoraalka ayaa ugu horreyn waxaa looga digay in uu dagaalkaasi sii socdo, kaas oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo halkaasi wada dega isla marhaantaana maalmihii u dambeeyay halkaasi ay diriri ku dhex maraysay. sidoo kale Jubbaland ayaa tacsi u dirtay dhammaan dadkii ku dhintay dagaaladaasi, iyadoo kuwa dhaawac ahna u rajeysay caafimaad degdeg ah. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Jubbaland ay ka warhayso gacmo kale oo horinaya dagaaladaasi, kuwaas oo ay ku eedeysay inay yihiin dana gaara kuwa leh. ugu dambeyn Jubbaland ayaa fartay laamaheeda amniga inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah isla markaana ay gacan biraha ku qabtaan cid kasta oo ku lug leh dagaaladaasi oo ilaa iyo hadda ay ku geeriyoodeen ku dhowaad dad kor u dhaafaya 50 ruux, waxaana weli jirin ilaa iyo hadda xabad joojin rasmi ah oo beelaha ku dagaalamaya duleedka Kismaayo la kala dhex dhigay. weli waxaad daawanaysaan wararka janalka Xusuus Ujoog Media. markaana madasha xisbiyada qaran ayaa qodobo xasaasi ah waxay ka soo saartay doorashada sanadka 2022 waxayna sidoo kale dalbatay doorashada in ay noqoto mid waqtigeeda ku dhacda. madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay uga digtay in doorashooyinka Soomaaliya ay ka dib dhacaan waqtigii loogu talagalay oo aan la aqbali karin in dib loo dhigo marnaba. qoraal ay soo saartay madasha ayay ku sheegtay inay garowsatay in xukuumadda hadda jirta ay ka cagajiidayso taabagelinta hanaanka xisbiyada badan ayna faragelin ku hayso guddiga labada gole ee diyaarinta xeerarka dhammaystiraya sharciga doorashooyinka qaranka. doorashooyinka dowladda federaalk ee Soomaaliya waa inay ku dhacaan xilligii loo asteeyay, waana in aysan dhicin wax muddo kordhin ah. doorashooyinku waa inay noqdaan kuwo xor iyo xalaal ah kuna dhaca si daahfuran leh, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madasha xisbiyada qaran. qoraalka madasha ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka hanaanka federaalka inay markaas u qoondeeyaan dhaqaale doorashooyinka soo socda, taas oo hadda aanan ka muuqan baa lagu yiri warka ka soo baxay madasha. ugu dambeyn madasha xisbiyada qaran ayaa sidoo kale waxa ay dalbatay in saamilayda siyaasadeed oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, xisbiyada siyaasadeed iyo ururada bulshada in ay si wada jir ah uga shaqeeyaan in la abuuro xaalad deganaansho ah oo lagu hirgelin karo doorasho sax ah. Somaliland waxay xaqiijisay in cudurka COVID-19 uu soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulkaasi. xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay si dadban waxa ay u shaacisay in cudurka dunida ku faafay ee coronavirus uu soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulkooda oo ay ku nool yihiin dad aad u fara badan. Somaliland ayaa sheegtay in cudurka corona uu deegaanadeeda ku faafay iyadoona ku boorisay bulshadeeda inay muujiyaan taxaddar dheeri ah oo markaasi ay uga badbaadayaan cudurkaasi. Salebaan Koore, wasiirka warfaafinta Somaliland oo warbaahinta la hadlay, ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay jawaabahooda maqan yihiin dad laga qaaday dheecaanadii si loo hubiyo inay qabaan fayraska corona. wasiir Koore ayaa isagoo arrinkaasi ka hadlaya waxa uu carabka ku adkeeyay in bulshada reer Somaliland aysan iska indhatirin cudurkan deegaanadooda soo gaaray oo ay markaasi is adkeeyaan. maanta xanuunka Hargeysa, Burco iyo Berbero wuu joogaa is-ilaaliya oo salaanta, isku soo dhawaanshaha iyo gacan qaadka joojiya. qof ayaa dili kara 100 qof isagoo aan ogeyn ama aan mas'uuliyad iska saarin marka aynu qaadano talada dhaqaatiirta, ayuu yiri wasiirka warfaafinta Somaliland. waxa intaas ku daray wasiirku, dad ayaa tijaabadooda la wadaa wayna badan tahay. labadii qof ee hore waynu xaqiijinay inuu hayo cudurka corona, wuxuu inala joogaa degalka yaanan isdiidsin, ayuu hadalkiisa ku sii daray wasiirka warfaafinta Somaliland. Somaliland ayaa dhawaan shaacisay in deegaanadeeda laga helay 2 kiis oo la xiriira cudurka coronavirus, iyadoo la aaminsan yahay in tiradaasi ay ka badan tahay dadka qaba cudurkaasi, maadaama aysan xukuumaddu sidii loo baahnaa ugu howlgelin amaba aysan ugu hortagin cudurkaasi. ugu dambeyntiina mid ka mid ah halgamayaashii ururka SYL, Dr. Cabduqaadir Boolay,
ayaa waxa uu maanta ku geeriyooday gudaha dalka Ingiriiska. Allah u naxariistay Dr. Cabdulqaadir Cali Boolay ayaa maanta waxa uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaala gudaha magaalada London ee caasimadda waddanka Ingiriiska. marxuumka geeriyooday ayaa horey uga soo mid noqday ururkii gobonnimo u dirirka ee la oran jiray SYL oo la aasaasay sanadkii 1943 waxa uuna sidoo kale soo noqday gudoomiyihii ugu horeeyay ee shaqaalaha, balse maanta ayuu ugu dambeyn ku geeriyooday dalkaasi Ingiriiska. Dr. Cabdulqaadir Boolay ayaa la sheegay in maalmihii la soo dhaafay uu ku xanuunsanayay gudaha dalka Ingiriiska, inkastoo weli aan si rasmi ah loo shaacin xanuunka hayay dhaktarka geeriyooday. waxaana marxuumkan uu markaasi ka mid ahaa dadka farakutiriska ah ee ka haray ururkii SYL isla marhaantaana xog ogaal u ah guud ahaan dalka. waxa uuna sidoo kale Dr. Cabdulqaadir Boolay ahaa qoraal Soomaaliyeed. waa tahay daawadayaal guntii iyo gabagabadii wararka channelka Xusuus Ujoog Media ayaynu isla soo gaarnay. guud ahaan intaas ayuu ku dhayahay caawa warkii oo aad ka daawanayseen channelka Xusuus Ujoog Media. fadlan mar kale waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe saarto channelka, gambaleelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela macluumaadka iyo warbixinadan halkan soo gelino. muuqaalkana la sii wadaag saaxiibadaada kale si dad fara badan ay u gaaraan wararka iyo barnaamijyada aynu halkan soo gelino. waadna ku mahadsantihiin daawashada muuqaalada aan halkan soo gelin.